daawade ku soo dhawaad waxa laga yaabaa inaad ka aqoon xayawaanka lagu tilmaamo xayawaanka ugu caqliga badan xayawaanada ee daanyeerka. daanyeerada waxaa loo qaybiyaa 240 nuuc, balse sida guud waxaa loo qaybiyaa 2 nuuc oo kala ah old iyo new. nuuca hore wuxuu leeyahay san dhuuban, halka nuuca new-ga ee cusubna uu leeyahay san ballaaran iyo waliba duuf badan. balse taasi kama turjumayso inay daanyeerada dhammaantood isu caqli yihiin. nuuca ugu caqliga badanna waxaa loo yaqaanaa chimpanzee oo ka soo jeeda baada gorillaha. inkastoo saynisyahanada qaar way sheegayaan say u badan yihiin in xayawaanka dolphinka ama humbarada uu yahay kan ugu caqliga badan, haddana daanyeerka nuuca ugu xajmiga yar waxaa loo yaqaanaa marmoset, waxaana laga helaa kaymo roobaadka Amazon, halka nuuca ugu xajmiga weyn loo yaqaano Madrid. nuucan xajmiga weyn miciyihiisu waxay ka waaweyn yihiin miciyaha libaaxa ee aad taqaanaan. nuucii ugu dambeeyay waxaa la ogaaday 2007 waxaana lagu magacaabayay Lhasa, waxaana laga helay dalka Republic Democratic of Congo. nuuca ugu dheereeya una orodka badan waxaa la yiraahdaa Batis, halka nuuca ugu qaylada badan ama ugu codka dheer loo yaqaano Hola. nuuca ugu saynta dheer waxaa loo yaqaanaa Spider, gaar ahaan midda dhadig. dhowr jeer ayaa loo diray saynisyahannada hawada sare, waxaana u diray dalalka Mareykanka, Ruushka, Faransiiska, waxaana la ammaanaa xigmadooda. badanaana waxaa loo diray nuuca chimpanzee ama baanka loo yaqaano. daanyeerka baabuunka waxaa lagu arkaa madxafka Qaahira, waxayna dunidu ku muransan tahay in asalka daanyeeradu ay yihiin dalka Masar. maskaxda daanyeerada waxaa laga cunaa qaaradaha Afrika iyo waliba Aasiya, gaar ahaan dalka Shiinaha iyo waliba dalka Malaysia.